aqalkii cumrada ilaa waqtigii Ibraahim calayhi salaam sanadkan cidina camiri mayso gudashada xajka la joojiyay cudurro baahaya daadad xasuuq iyo tiraba 40 jeer ay Makii albaabada ka xiratay wajiga xujaajta soo booqanaysa waxaana sanadkan la sugay inaanay cumro jiri doonin bisha Ramadaanka sida uu cadeeyay wasiirka xajka ee cumrada ee dalka Sacuudiga in ay hakiyeen dawladuhu bixinta fiisaha lagu tagayo Makka isla markaana dadyo badan waxay u tixgeliyeen in ay tilmaam cad u tahay sanadkan inaan xaj gabi ahaanba jirin laga yaabaa in ay noqoto markii ugu horeysay ee laga cudur daarto muslimiinta dabacsan gudashada waajibaadka xajka ee casrigan aan ku suganahay balse dood la'aan ma aha markii ugu horeysay tiraba 40 jeer ayaa Makka albaabada loo jiiday waxaana laga mamnuucay dhammaanba gudashada waajibaadka xajka muuqaalkan ayaan idinku soo bandhigi doonaa inta ugu mudan dagaalada iyo loolanada siyaasiga sanadkii 865 miilaadiga waxa Ismaaciil bin Yuusuf al-Calaawi uu weerar ku soo qaaday buurta Carafaad isagoo ku xasuuqay xujaajtii ku sugnayd buurta arintaasina waxay ku riixday dawladda Cabbaasiyiinta in ay joojiyaan gabi ahaanba gudashada xajka sanadkii 930 miilaadiga ciidamadii qaraamidada uu hogaaminayo Abu Taahir al-Qarmadi ayaa soo weeraray Makka al-Mukarrama waxaanu laayay in ka badan 30,000 oo qof oo muslimiin ah xilligaas waxa agagaarka kabcada buux dhaafiyay meydka iyo dhiigga oo si xawliya u qulqulay inta dabadeed waxa qaraamidadu isku dayday in ay xatooyo u geystaan dhagaxa madow ee kabcada sharafta leh iyagoo dhammaanba jidadkii xujaajtu soo mareysay xanibaad saaray taasina waxay dawladda Cabbaasiyiinta ku hagtay in muddo 20 sano ay joojiyaan cumrada iyo xajka sanadkii 983 ee miilaadigana waxa loolan hor leh ka dhex caloosmay dawladaha Cabbaasiyiinta iyo Faadimiyiinta xilligaas waxay go'aansatay dawladda Cabbaasiyiintu in muddo 8 sano la hakiyo gudashada waajibaadka xajka sidoo kale sanadkii 1789 ololihii Napoleon uu ku qaaday mandaqada Carbeed iyo jidadkii xajka oo la gooyay waxay horseeday in sanadkaasna la joojiyo gudashada xajka cudurrada baahay iyo daacuunka sanadkii 1831 daacuun ayaa ku dhex fidaya gudaha xujaajta waxaana uu laayay in ka badan kala barkood sanadkaas waxa la hakiyay xujaajtii rabtay inay xajto sanadkii 1837 waxa soo laabtay daacuunkii nafaha badan ku galaaftay dhulka muqaddaska ah si loo joojiyo 3 sano oo dhameystiran cumrada iyo xajka waqtigaas inta dabadeed sanadkii 1846 waxa si xawliya ugu baahay Makka al-Mukarrama cudurka kolera taasina waxay horseeday in saxanka kabcada albaabada loo laabo ilaa sanadka 1850 daadadka iyo fatahaadaha markii ugu dambeysay ee la xidho dhulka barakaysan ee xarameynka waxa uu ahaa sanadkii 1941 xilligaas oo ay daadad badan ku soo rogmadeen magaalada Makka taasoo natiijo u noqotay markii ugu dambeysay ee kabcada albaabada loo xidho maanta oo ku dhawaad 70 sano laga joogo markii ugu dambeysay ee kabcada booqashadeeda la joojiyo waxa timi fikradda hakinta tiirka shanaad ee islaamka kadib markii uu xoog u faafay viruska corona iyadoo ay dib inoo xasuusisay mid ka mid ah ujeedooyinka islaamka ugu muhiimsan oo ah ilaalinta nafta qofka muslimka ah taasoo ay ka horumarsan tahay ilaalinteedu gudashada halkudhigyada shareecada ee cibaadada ah in ay dhagax u fiidhanto kabcadu oo ay dunto ayaa alla kala fudud inuu daato dhiig qof muslima sida ka sugnaatay nabiga muslimiinta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam